kulan wanaagsan rasmi ahaan waxaa la ogaaday duuliyihii u dhashay Mareykanka ee la socday diyaaradii ay soo riday dowladda Iiraan ee ku dhacday gudaha dalka Iiraan isla markaana labadii duuliye ee la socday midna la badbaadiyay midkii kale saacado la raadinayay ayaa ugu dambeyn la ogaaday masiirkiisa sida sawiradan aad ka arkaysaan toosna aad ula socotaan warbaahintoo dhan ayaa baahinaysa in askarigii labaad ama duuliyihii labaad ee la socday diyaaradii ay soo riday dowladda Iiraan in si rasmi ah loo ogaaday halka uu ku dambeeyo dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u badbaadisay duuliyaheedii labaad sida warbaahinta dalkaasi Mareykanka ay ku waramayso warbaahinada kala duwan Axios warbaahinta Wall Street Journal iyo waliba xitaa New York Times intuba waxay xaqiijinayaan ciidamada gaarka u tababaran ee Mareykanka inay soo badbaadiyeen askarigii labaad ee shaqaalaha ka ahaa diyaaradii dagaalka ee F-15 Eagle ee lagu soo riday gudaha dalkaasi Iiraan qaybtan waxaan ku eegi doonaa sidee loo soo badbaadiyay howlgalkaasi sidee buu u dhacay yaa ka qayb qaatay sidoo kale diyaaradihii ka qayb qaatay mise ay ahaayeen maxaa laga ogyahay dowladda Iiraan iyadu maxay samaysay howlgalkii lagu badbaadinay intii uu socday intuu waan dul istaagi doonaa soo dhawaada halkani waa Warweyn TV channelka subscribe saaro si share gare saaxiibadiina la wadaaga muuqaalka like ku dhiirigeliya aanu ku bilownay dhacdadan waxay ahayd mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa caalamka saacadihii ugu dambeeyana warbaahinta oo dhan waxa isha ku haysay waxa ka dhex soconaya gudaha dalka Iiraan maadaama howlgalka badbaadinta Mareykanka aad iyo aad u ahaa mid ugu adkaa ciidamada dalkaasi Iiraan ee kacaanka iyo waliba kuwa kale Mareykanka ayaa midba midka kale u tartamaya sidii gacanta ugu dhigi lahaa askarigaasi haddaba dowladda waddankaasi Mareykanka ayaa akhirkii ku guuleysanaysa inay gacanta ku dhigto askarigaasi mid ka mid ah saraakiishii saarnayd diyaaradii ku dhacday gudaha dalka Iiraan ayaa la soo badbaadiyay howlgal ay fuliyeen ciidamada gaarka u tababaran ee Special Forces loo yaqaano oo Mareykanku u leeyahay sidoo kale inta howlgalkaas uu socday hawada waxa ka taageerayay in ka badan 100 askari ilaa 100 ay wararka qaar tilmaamayaan diyaarado aad u fara badan isla markaana waxa la arkay goobta askarigaasi uu ku sugnaa in sibba aan rasaas loogu furay isla markaana laga hor istaagayay in cidi ay ku soo dhawaato waxa la duqeynaya qof kasta oo agaarkaas u soo dhawaan karayay haddaba see lagu ogaaday caadiyan marka bayloodka uu isagu ka boodo diyaaradda kursiga waxa ku xiran qalabkaasi oo isagu u gudbinaya xaruntii ciidamada iyo satellite-kuba goobta rasmiga ah ee askariga uu ku sugan yahay ama markaa duuliyihii diyaaradda uu ku sugan yahay sidaas ayuu sameeyay markii diyaaraddu goobta ay ku dhacday waa uu ka tagay waxaana uu koray buur dheer sida markaa Axios ay xaqiijisay marka goobtaasi uu koray kadib waxa si cad uu isagu markaa u codsaday gurmad degdega laakiin mushkiladdu waxay ahayd dowladda waddanka Iiraan oo soo faragelisay howlgalka badbaadintu ma ahayn mid sahlan dabcan isla shalay tool way ka warheleen baa la yiri askariga walow waqti dheer uu isagu qaatay in la ogaado halka rasmiga markii iyagu gurmad ahaan ay u ogaadeen inuu askarigu u baahan yahay laakiin waqti ay ka qaadatay inay ogaadaan ciidamada Mareykanka goobta rasmiga ee askarigaas uu ku sugan yahay laakiin diyaaradihii ugu horeeyay ee shalay toole galay gudaha dalkaasi Iiraan waxa ay la kulmeen caqabad xoogan caqabadaasina waxay ahayd kadib markii laba helicopter oo ka mid ah kuwii badbaadinaya ama isku dayeen askariga labaad soo badbaadiyaan hawada dalka Iiraan waxyeelo lagu gaarsiiyay gantaal ayaa ku dhacay mid ka mid ah helicopteradaasi waxaana ay ka carareen gudaha dalka Iiraan iyagoona u baxsaday dibadda iyo saldhigyadii ay ka soo kaceen si ugu yaraan iyagoo isku badbaadiyaan tani waxay sii adkaysay howlgalka markaa tani waxay aad iyo aad markaa mid mucaqad ama dhibaato badan uga dhigtay howlgalka bayloodka ayaa la tilmaamayaa in waqti dheer kadib la badbaadiyay saacado yar ayaa lagu soo waramayaa ka hor ayay u suura gashay ciidamada Mareykanka inay badbaadiyaan gaar ahaan ciidamada Special Forces loo yaqaano xaaladda goobta waxaa la tilmaamayaa sabtidii in la isku helay oo dadka dagaalyahanada deegaanadaasi ku sugnaa ee marka shacbiga ay hubka qaatay ay raadinayo baadigoobayay iyo ciidamo ka tirsan dowladda dalkaasi Iiraan oo ay u dirtay marka laego ciidamada kacaanka ay soo direen ayaa goobta isku helay ciidamada Mareykanka dagaal waxa ka dhacay aan caadi ahayn dhowr saacadood ayaa lagu soo waramayaa in hawada la isku farasaarayay isla markaana aad iyo aad hawada la isku helay
aakhirkii waxaa lagu soo warramayaa ciidamada Mareykanka rasaas iyo hub aad u culus inay adeegsadeen kadibna ay ku guuleysteen askarigaasi inay goobta ka saaraan. Dowladda dalkaasi Iiraan juhdi aad u ballaaran bay ku bixisay ayaa leeyahay, laakiin nasiib darro waa marka askarigaasi uu ku guuleystay Mareykanka inuu ceshto. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump si gaar ayuu la socday ayaa la yiri howlgalka, isagoo sidoo kale qolka aqalka cad kala socday sida howlgalka uu soconayo. Intii lagu guda jiray badbaadinta bayloodkan ayaa la tilmaamay Iiraan inay duqeysay helikabtar kale nooca 60 Black Hawk la yiraahdo, laakiin waxaa lagu soo warramayaa in dhaawacyo ay soo gaartay helikabtarkaasi. Weliba muuqaalo iyo weliba dhacdooyin kale ayaa laga arkayay oo ku aadan qaabka askarigaasi sida la isku dayay loo soo badbaadiyo. Dowladda dalka Iiraan ay doonaysa inay gacanta ugu dhigto, halka dowladda waddankaasi Mareykanka ay rabtay inay ilaaliso sharafteeda maadaama wixii ku dhacay aysan ahayn wax sahlan. Trump oo hadlay ayaa sheegay ciidamada Mareykanku inay fuliyeen mid ka mid ah howladihii ugu adkaa marka la eego, isagoo ku faanay inuu ahaa howlgal geesinimo leh. Waxaana uu sheegay mid ka mid ah howlaha ugu adag ee badbaadinta inay ahayd taariikhda Mareykanka. Haddaba dabcan falkan laga maarmi karay saacado qaatay ee allow ibixiga marka Mareykanka uu isagu askarigaasi ku badbaadiyay ayuu ku tilmaamay in uu ahaa askari dagaalyahana, ciidamaduna ay yihiin dagaalyahano waqti dheerna markaasi iyagu ay markaasi ku qaadatay in la badbaadiyo. Trump ayaa ka badbaadaya fadeexad kale oo aan sahlanayn, walow fadeexadoodu ay tahay mid waqti dheer markaasi iyadu Trump fadeexad u joog baa la yiraahdaa, isagu ma hurayo oo dhacdo kale waad arki doontaa. Wall Street Journal goordhaweyd waxay sheegaysaa in dhammaan ciidamadii Mareykanka ay ku sugnaa gudaha dalka Iiraan laga soo daadguriyay oo ka soo baxeen si nabadan iyagu ay uga soo baxeen. Haddaba howlgalkan ayaa qaatay saacado, waxaana uu ahaa mid aad iyo aad la isugu riiqmay oo ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iiraan dagaal ay u galeen sidii askarigaasi ay markaa u qaban lahayn. Laakiin ciidamada dalkaasi Mareykanka ayaa lagu soo warramayaa inay ku guuleysteen iyagoo adeegsanaya diyaaradooda qumaatiga u kaca, diyaaradaha F-35 iyo weliba kuwa kale aad u fara badan iyo boqolaal ciidamada. Goobta oo dhan ayaa la tilmaamay in la hareereeyay, kadibna iyagu askarigaasi soo bixiyeen. Mareykanka wuxuu qorsheynayay ciidamo luga inuu geeyo gudaha dalka Iiraan. Haddii askar laga qabto, hal askari ayaa waxay qaadatay dhowr iyo 30 saacadood in la soo helo buurahaasi dhexdooda. Ka waran haddii askar fara badan laga qabto, sidee baa markaasi ay u noqonaysaa kuwa lagu guuleysteen la soo celiyo? Ma sahlnaan doonto. Waa war degdeg ah oo aan ku soo koobay daawade. Haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saaro, si share garee, saaxiibadiina la wadaaga. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaan ka codsanayaa muuqaalkeena like ku dhiirigelisid, saaxiibadiina aad la wadaagtaan. Sidoo kale muhiim ayuu noo yahay muuqaalkeena sii share gareysid oo baraha bulshada ku sii share gareysid. mahadsanid daawade.